labadan walaalaha waxay maxkamad la tageen hooyadood balse garsoorihii maxkamadda joogay markuu kiiskooda dhageystay ilmada ayuu cishan waayay. labada nin walaalaha waxay u dhasheen Sacuudi Carabiya, waxay isku qabsadeen hooyadood ninkii xanaaneyn lahaa. labadooda midka weyni wuxuu ku garnaqsaday in hooyadii ay tahay naftiisa meelna aan uga tagi karin, xitaa kan la dhashay walaalkiisa aan u ogolaan karin inuu hayo, isaga keligiina uu doonayo inta cimrigiisa ka dhiman inuu hooyadii gacanta ku hayo. halka midka yari isna uu ku garnaqsanayo hooyadiis inuu isaga awood u leeyahay inuu xanaaneeyo, walaalkii ka weynna uu da'yahay isaga naftirkiisa uu xanaano u baahan yahay. garsoorihii markuu garto meel uu qaado u garan waayay, hooyadii ayuu u celi waxauna ku yidhi labadaa wiil mid kala dooro. iyadana waxay ku jawaabtay labadeeda indhood miyaan kala dooran karaa, labadeeda indhood ayay yihiin. garsoorihii waxay danta ku qasabtay inuu wiilka yari u ogolaado maadaama uu yahay nin daayar ah, awoodna u leeyahay inuu hooyadii xanaaneeyo. markii go'aanka lagu jiiday qalinka, wiilkii weynaa oohin ayuu jabsaday isagoo la barooranayo hooyadii oo u arkayay inay tahay noloshiisa oo dhan in maanta laga wadayo. ilintiisi markay arkeen garsoorayaashii dadkii meesha joogayba ayagana waa ay ku wada dareen. walaalkan weyni waxa uu la oynayana ma aha dhaxal iyo wax lagala tegay, balse hooyadii qiimaha agtiisa ay ka leedahay ayaa aad iyo aad ugu weynaa. haddaba waqti xaadirkan la joogo waxaad arkaysaa dhalinyar ama rag dhaxaad ah oo waalidiintooda ku caasinayo misana hooyooyinkooda u arko alaab uu aabahooda leeyahay camal, sida waayadan dambe oo baraha bulshada ku aragtaan. ma oran karnaa markaa labadan wiil oo walaalaha waxay muujiyeen darajadii ugu sarreysay ee baaranimo ah. qisada labada wiil iyo hooyadani maalmahan iyada ayaa trends ka ah baraha bulshada, waana qiso qofkii qalbigiisa wax yar naxariisa ay ku jirto uu la ilmeynayo. adigu hadda labadan wiil haddii lagu dhiibi lahaa gartooda maxaad ku kala xukumi lahayd? yaasi u dhiibi lahayd hooyadu? fakarkaagu waa inoo muhiim. dhan committee la wadaag, falodalkan ha ilaabin. goodbye.